الرحيم مقعد واسقة بالضبط حق سؤال تلفزيون هون كيبل قدومي لبس سؤال بدك ويديني سؤال شو تقدر شوي كلا حضيان واحد جود حاسب إحنا نحس بوقت لا قبل سنتين إن جود ذا وأنا هاي كوي دور شو سؤال شكله قدومي ويديني أنا وحوي حسب جالك وضني حان إلا حلي قام مقبسون مش وينه حسب جا وضني وحنا شركة إلا يكون أذني هدور شد عدت شيء لسان ميان لورنا حسب جا وضني هدو قال لك رواية قولي يصير شوينه يصير دور شنا مقولي كرسول تاسلوب توجيهي لو سؤال وناكسن waxay la tahay haddii kiis la qaadayo dhaqanka Soomaalida waxa jiri jiray xeerbeegti labada dhinac ee is haysta oo garqaada sharciga madaniga iyo ka caalamkuna waa sidaas waxaanu codsanay in cidda doorashada qabanaysa ee hawlaha doorashada qabanaysa ay noqoto cid lagu wada kalsoon yahay maadaama aanu kalsoonidii kala noqonay commissionka dee markaas su'aal bamaaha maxay sii qabanayaan kalsoonidii war kala noqon laakiin diyaar baan u ahay inta waxaan lahayn commission aynu sameeyno ilaa maantana waa leenahay si doorashadii noogu qabsoonto arinta labaad ku saabsan shirka shirweynaha xisbigu uu qabsanaya go'aan guddi fulineed baa jira oo ah in shirki golaha dhexe la qabto kaana lagu mudeeyo shirweynaha kulmiye bergii shirweynuhu ka baqaba muu qabsanay laakiin shirki golaha dhexe aanu qabanaynaa dhawaan dabeedna kaasaan ku mudeeyin doonaa shirweynihii xisbiga ninkaas ka horeeyay mudane gudoomiye magacaygu Axmed Saki Ibrahim waan kaaga mahad celinaa marka hore shir saxaafadeedka aad warbaahinta u qabatay sidaad ogtahay xisbiga wadani iyo sidoo kale xisbiga wicid oo wada jira waxay markaasi sheegeen in markaasi qodob ay xukuumadda hor dhigeen ay ka mid yihiin in laba guddidan imika joogtay ee commissionka sidoo kale labadii xubnood ee dheeriga ahaa isaga laga dhigana waa lagu daray waa maxay caqabadda xisbiga wadani xilligan la oran karo doorashadii ku diiday su'aal waa taas talabaad ku weydiinaya waxa weeye kulamo dhowra intii aad ku maqnay dalka dibadiisa waxay hoggaanka xisbiga wadani la yeesheen labada xisbi inaad arrintaa ku diiday oo aad joojisay go'aanadii xilliga su'aalahagu waa horta anigu xisbi ahaan labada qodob sheegtay laba qodob uu xisbigu wasishakiisu yahay ama mowqifkiisu yahay in commission cusub la sameeyo si simanna commissionkaasi axsaabtu u soo xulaan labadii qodob midna lama ogolaan commissionki dee waa kan jooga soo ma ogi inuu joogo laakiin bisha xal federal go'aan ugu gaadhay go'aankaasi ma jiro maadaa gaadhay ma jiro go'aankaasi cidii kugu tiri weydii ma jiro go'aankaasi laguma heshiinin in juun la kala diro ilaa haddana waa arrintaasi way taagan tahay ta labaad waxay ahayd in tirada loo siman yahay oo sagaal laga dhigo kulmiye oo cidee heshiiskooda waxa hadda ku yaala labada waxa la kordhin doonaa doorashadan kadib annaguna waxaan rabnaa in doorashadan lagu sorry su'aal kale jirtay oo maxaad ku diiday anigu ma diidin xisbigu nin kaliyaale maaha xisbigu de hoggaan buu leeyahay wax lagu heshiiyo ma jirto discussion bay ahaayeen waxaas waxay ahaayeen dood qodobadaad sheegaysaa dood bay ahaayeen wax axsaabtu ku heshiisay ma jiraan heshiisku wuxuu yahay markii heshiis dhaco dee waa la kala qortaayo waa la seexaa marka heshiis dhacay ma jiro ninkaas ka soo reeyay amaade arrinka Axmed Cismaan Geelle oo in kooda war hayno in uu buuq badan ka dhaliyay iyo muran badan Somaliland xisbiga wadani horu cadeeyay mowqifkiisa adiga Cabdiraxmaan cira ahaan ta hore xisbigu de ashkhaas ma ahay waa xisbi arrinta Axmed Cismaan Geellena waxaan kala mowqif ahay tii xisbiga arrintaasna xisbiguna uu ka hadlay mowqifka uu xisbigu jeediyeyna 100% man taageersanahay waayo xisbigan ka mid ahay anigu kolba cidii joogtaana matalaysa xisbiga xukuumaddu sidii ugu foosho xumayd bay arrintaa u maamushay waxaa looga baahnaa si cadaalad ah
inay u maamusho oo muwaadiniinteeda iyo ciddaan muwaadiniinta ahayn baa loo xaqsooro sidaan ka dhegaystay qalabka warbaahinta axmed cismaan geelle 20 milyan baa loo sheeganayo ma dafirin wuxuu yidhi waana lagu leeyahy isna waxaa ka maqan 128 milyan xilkeedu in loo soo celiyo axmed cismaan geelle lacagtaas xukuumaddu saaran yihin waayo dastuurku wuxuu qorayaa muwaadinka nabadgelyadiisa iyo xoolihiisaba waxaa ka mas-uula oo xil ka saaran yahay hase yeeshee haddaa xukuumaddu maqdka ka qaadatay waa weydeero waxaabay ku sheegeen tuug iminkana odayaal baa arrinta ku jira waxaan rajaynayaa odayaashaasi waa ku taageersannahay waxaan rajaynayaa inay ka gaadhaan xal arrintaas su-aashii labaad wixii dhalin leena waanu qaadanaynaa haddaanu ka gaabanay doorkii mucaaradada laakiin turaalaa nagu jira intii hore waa soo gaadhsiinayna halkaad dooneysaan xisbiga kulmiye iyo xisbiga ucud waxay sheegeen in doorashadii ay gelayaan maruu waraysi siinayey universal t v wuxuu sheegay in uu la kulmay qadar markuu joogay madaxweynaha farmaajo inuu kulan la qaato ka xisbi ahaan ma taageersantii waa qodob koowaad su-aasha labadan doonaya waxa weeye yaa yidhi xisbiga kulmiye iyo ucud tallaabooyin bay qaadeen heshiisyadoodana ay ku ansixinayaan ay ku raadinayaan waxay la kulmeen commissionkii waxay la kulmeen labadii gole ka xisbi ahaan idinka mar haddii iyagu horta ta hore akusehe waa ismaaciil waa runtii dee odayaasha xisbiga hoggaanka saree xisbiga kama tirsana halka waa kaa saxaya odayaasha xisbiga taageerayaasha xisbiga ayuu ka mid yahay laba ismaaciil waa nin reer somaliland ah waa nin siyaasi ah waa nin caalami ah waxaa ka warqabtaan dee brussels waxaa ugu tegey farmaajo muuse biixi iyo cali khaliif faysal cali waraabe sorry cali khaliif iyo faysal cali waraabe isagu umuu tegin umuu qastin inuu la kulmo farmaajo laakiin dee meeshii safar ku marayeenoo way is salaameen ama way wada hadleen siduu sheegay marka waxay la mid tahay un dee dhacdooyinkaas marka ismaaciilna uu dee ra'yigiisa nin sida uu sheegay ka maqlayseen tifiyada nin ra'yigiisa la baqaya maaha wuxuu sheegay in danaha somaliland ay ka wada hadleen marka kulanka ay kulmeenna dee kulan la qorsheeyey oo u dhoofay ma ahayn laakiin isna meeshuu marayay saasay ku kulmeen arrinta ta labaad waxay ahayd qorshaha idinka meelyaala ka xisbi ahaan mar haddii ucudi kulmiye iyagu qorshaashoodii ay wataan komishinkiina la kulmeen golihii wakalena la kulmeen qolaha ka xisbi ahaan idinka yaala su-aasha labada laba horta waa mid dee commissionku 3 xisbi doorasho u qabta inkastaan anagu dee kalsooni kala noqonay marka commission 2 xisbi doorasho u qabanayaana ma jiro dhammaan wixii doorashadu ku xidhnaydna oo wada qabyo marka waa sheego waxaan ku yidhi waa riyo maalmeed xeerkii ma yaallo saami qaybsigii guntiga muuse ku jira lagama heshiinin weli kootihii dumarka iyo haweenka miisaaniyaddii gacanta laguma hayo marka doorashadu mid qabsoomaysa maaha sidaa ku qabsoomi mayso lakin de waa in caqabadii la qaada The agreement between UID and Kulmiye, you say that it's like a death certificate to Somaliland democracy. I really want to know, what did you mean by this? And you are supposed to have a central committee convention for... It is that they are writing the death certificate of democratic process of Somaliland. They are saying instead of holding a national election or general election, which by rule or by law or by constitution cannot be held without 3 parties,
What I mean is that they are violating the constitution, they are violating the national laws, and they said they will hold an election with two parties, which is totally impossible in Somaliland. The convention is in the pipeline. We will announce within this year what time we are hold this convention. gudoomiye magacayga ay Mustafa Sheekh waxa ka soo tigeen dalka Imaaraadka waxay markaa sheegeen in heshiis la galaan dawladda Imaaraadka way ku heshiiyeen hay'ad xukuumadda ama xukuumadii kulmiyada waxa shacbiga iyo baarlamaanka iyo cid walba ay in xeerarkii waxay heshiisyadii la keeno marka kuwa horena qarsoodi bay haayeen oo shacbiga markii hore waxa lagu maaweelinayay airportkii qola la siiyay laakiin mid cusbaan ay loo dhisaya haddana waxa la yidhi ma jiro waa ballamihii dee xukuumaddu qaatay maalin dhawadii soo noqdeen markii muuse tegay ugu horreysay waxyaaba badan bay tiriyeen baasaboorka Soomaaliland baa lagu dhoofayaa waxaan baa la samaynayaa qodob qoro hirgelayna ma jiro horta heshiiskaasi dee kuwii qarsoodiga la mid yahay oo wuxuu yahay garan mayno markay dalka u soo bandhigaan waxaan leenahay dalka u soo bandhiga oo dee wax wanaagsan cidina diidi mayso in xoolaheenu suuq helaan waa arrin wanaagsan laakiin qarsoodiga ka saarta xukuumaddu arrinta oo shacbiga intaasoo qof baa danaynaya waxaanu ku noolnayba waa xoolaha dhaqaalaheenu xoolo ku salaysan yahay marka qarsoodiga ka saarto shacbiga hoos u bandhigto gudoomiye sanadkii u dambeeyay xisbiga mucaaradka wadani wuxuu tagnaa in la kala diro guddiga doorashooyinka xubin baana haddii ay suurtagal noqon weli in la kala diro xubintiina maxaa ugu eegaysaan ee golobka su-aasheeda labaadna jeclayna ku weydiin waxaa jira cabashooyin ka soo yeedha shacabka Soomaaliya dhawaanna aad ka yara hadashay oo hay garsoorka xukuumaddu waxay taagantay garsoorka ku shaqeynaya sidii saxda adiguna waxaad leedahay garsoorka waa ka qaloocan maxaa ka qaloocan ee xukuumaddu sheegay midda laba jeer saddexaad ee jeclayna ku weydiin dadka siyaasadda oo doosa ama muxuu ahaye raayul caamka inta kaa soo horjeeda waxay taagantay gudoomiye reer iyo xisbigiisu dalka farqawada ku wada meel soo aragtaa nin dalka farqawada ku wada waxaad soo aragtaa nin Soomaaliland dhisay dee taa maxamed kain baa ka jawaabay horta wixii mucaaradba ma jiro isaga afkaygii ku hadlayo marka fadqaalo waxa uu ka imanaya hadduu leeyahay maxamed kain ninkii amniga ka mas-uulka qaranka wuxuu leeyahay mucaaradba ma jiro annagu xisbi ahaan waxaanu qabanay dee commissionka in la helo commission dhexdhexaad ah oo haddaanu nidhi kalsoonidii waanu kala noqonay waxaanu doonaynaa doorashada inay qabsanto markaa su-aaluhu de way isku soo noqnoqonayaane mar walba annagu intaas soo qodobo oo qabiyaa marba waxaanu nahay la qabyo tiro doorashada wax ka qabiyaa labada qodob aanu soo jeedinay waxay ahaayeen commission loo siman yahay oo sida loo soo xulayana loo siman yahay in la helo taas wax kale oo aanu annagu shuruud kale aanu wadanay oo doorashada hor taagani totally ma jirto qaar bay laaban maqaynayaa haddii aad halkaa taagantahay maxaa xubintiina wala toddobada xubnoodba horta annagu dee waanu eedaynay xubintaydu way wanaagsan tahay oo toddobada ka mid maaha maanaan odhan marka waxaanu jecelahay toddobaduba inay tagaan oo taayaduna ku jirto iminkana waxaanu taaganay toddobaduba ha tagaan garsoorka dee garsoorka waxay la tahay qof waliba wuu ogyahay garsoorka Somaliland maanta halku taagan yahay waxaa ugu dambeysay guddoomiyihii gobolka Maroodi Sheekh oo maalin dhaweyd la yidhi nin weriyo burca laga soo khadobay halkan jurisdictionkeedii maaha dee ha lagu celiyo burca laga soo qabtay burcana maxkamad gobolka ku taalla haddii la eriyo xitaa waxaa in guddiga cadaaladdu erido sida dastuurka iyo xeerka ismaamulka cadaaladaba ku qoran hase yeeshee nin baa eriyey cadaaladdu halkaasay maraysaa dee maanta gudaheedii bay cadaalad darra ka jirtaa cadaaladdu gudaheedii baa maanta cadaalad darradii ka bilaabantay marka shacbigii soo dhammaysay saasaan qabaa anigu
hal su'aal baan ku weydiinaya adiga iyo xisbigaaguba waxaad sheegteen gaar ahaan weliba saraakiil ka tirsan xisbigaaga sida buubaayo kaba wuxuu sheegay in imaaraadku faragelin ku hayo somaliland maxay tahay faragelinta somaliland ku hayo somaliland inay ka badbaado faragelin dowladeed way u baahan tahay ama imaaraad ha noqdo ama dowlad kale ha noqdo in codina soo farageliso oo wax la yidhaahdo adduunka maanta waxaa ku badan waxa la yidhahdo proxy war ama dowlad faragelin ku haysa ama dowlado kale oo fara badan oo ku hayn kara waxaa ka warqabtaan dee somaliland saldhig baa laga sameynaya military dalal badan oo saldhigaa diidan baa jira marka taasi waxay keeni kartaa dalal kalena inay somaliland soo farageliyaan sida caalamkaba ka dhacda